Norway ayaa heshiiskii ugu ballaarnaa uguna baaxadda weynaa ee dhanka difaaca ah waxa ay la saxiixatay waddanka Jarmalka ka oo noqon doona heshiis aad u ballaaran oo qaybaha kala duwan ee difaaca iyo ciidamada ku saabsan. Wasiirka difaaca Norway Tore Sandvik iyo wasiirka difaaca waddanka Jarmalka Boris Pistorius ayaa kala saxiixday heshiiskan iyada oo ay goobjoog ahaayeen oo ay dul taagnaayeen markii heshiiskan difaaca baaxadda weyn la kala saxiixanayay. Ra'iisul wasaaraha waddanka Norway Jonas Støre iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Jarmalka Friedrich Merz kuwa oo saxiixa joog u ahaa, waxaana heshiiskan loogu magac daray heshiiska Hansa. Waxa uuna noqon doonaa heshiiska ugu ballaaran ee Norway dal kale la saxiixatay. Qodobada ugu muhiimsan heshiiskan ayaa lagu soo waramayaa in uu yahay ilaalinta iyo difaaca hawada sare, amniga badda, sidoo kalena dagaalka dhulka sidii loo xoojin lahaa iyo xaaladaha degdegga ah iyadoo warshadaha difaaca labada dal isweydaarsan doonaan. Arrintan ayaa ra'iisul wasaaraha waddanka Norway iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Jarmalka Merz iyo Støre waxa ay u soo dhaweeyeen si aad ah, waxa ayna ku tilmaameen heshiis taariikhi ah oo guul u wada ah labada waddan. Labada dal ayaa horay waxa ay u lahaayeen iskaashi difaac iyadoo sanadkii u dambeeyay dhanka difaaca ay dhex martay adduun lacageed oo gaaraya ilaa 16 bilyan oo koronka Norwejiga ah. Iskaashigan cusub ayaa waxa uu sidoo kale horumarinayaa dhanka maraakiibta difaaca iyadoo ay Norway iyo Jarmalba samaysan doonaan maraakiibta gujisyada ee badaha hoostooda isaga kala goosho, kuwa oo dal walbaba uu samaysan doono ilaa 6 markab oo gujisyo ah. Sidoo kalena waxaa la horumarin doonaa dayactir baaxad weyn lagu samayn doonaa warshada difaaca dhanka badda ee ku taala magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway. Waxayna Norway sidoo kale hadda dalbatay ilaa 54 taank kuwa oo ah Leopard 2 oo uu soo saaray Jarmalka, waxaana taangida lagu samayn doonaa sida la sheegay gudaha waddanka Norway warshado uu Jarmalku ka samayn doono. Difaacan cusub iyo iskaashigan dhanka militariga ah oo ay Yurub gudaheeda samaysanayso ayaa waxa uu ka dambeeyay markii uu hoos u dhacay xiriirkii iskaashi iyo difaac ee ka dhaxeeyay Yurub iyo Mareykanka kadib isbedeladii kala duwanaa ee ka yimid dhanka madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump. Arrintan ayaa waxa ay muujinaysaa in Yurub ay bilaabayso in ay isku tashato dhanka difaaca maadaama ay xilli dambe ku soo baraarugtay in ay dayacan tahay oo aysan haysan difaac ku filan dalalkoodana dhanka ciidanka hubka iyo sidoo kale istiraatiijiyadooda difaacu ay aad u hooseyso. Markii horena waxa ay wadamadan ku tashan jireen oo ay ku taagnaayeen sida muuqato waddanka Mareykanka oo xubin ka ah gaashaanbuurta NATO oo ay ku jiraan inta badan wadamada Yurub. Arrintan difaaca, hub aruursiga iyo sidoo kale dhisidda ciidamada ayaa weli ku sii xoogaysanayso guud ahaan wadamada kala duwan ee Yurub. Waxa uuna heshiiskan dhex maray Jarmalka iyo Norway noqonaya kii ugu ballaarnaa ee labada dal dhex mara, iyagoo hadda kadib u muuqda in ay dhanka difaaca, iskaashiga iyo sidoo kale militariga sii xoojin doonaan. Halka warka kiisa ugu doorkaran uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.